waxaa muhiim ah in fiiro gaar ah u yeelano oo isla markiiba calaamado ah si degdeg ah in isbitaalku aadid ay tahay qasab. koow, qofkii haddii ay 24 saac ka badan uu shubmayay in isbitaal la aado waaye. labo, haddii uu dhiig ku arko saxarada ama wax madow ama wax malax oo kale ah. haddii qandhada hayso ay ka badato markii la cabiro 39 ilaa 40 ay gaarto, waa in qofkii si degdeg ah isbitaalka loo geeyaa. Assalaamu calaykum, walaalkiin Torxaadle. maantana waxaan ka hadli doonaa wax loo yaqaan shuban ama diyaaree afka qalad lagu dhaho. waa maxay shuban? shuban waa inuu qofka dhowr jeer ama 3 jeer wax ka badan musqusha gala, saxradaas oo ah mid jilcan ama biyo ah. haddaba sidee loo kala qaadaa? 2 nooc ayaa jirta shubanka, ama 2 qaab ayuu leeyahay, mid degdeg ah iyo mid waqti dheer jiraayo oo soo jiray. midka degdega ah waa mid maalin ama 2 jiray, kaas oo ay keenaan waxyaabaha keenan ay yihiin sida infectionka iyo in cuntada qofka ay dhibayso. sida infectionada waxaa kamid ah sida bacteria ama virus ama parasite inuu keeno, ama cunto ay ku dhibayso qofka, ay dhibayso waxyaabahan cunto oo maanta ku cusub ama sun ama wax ugu darsanayo. midka waqtiga dheer jira ama chronic diarrhea ayadana waxa keeno 2 week ka badan inuu jiraa la rabaa, waxaana keeno cudurrada caloosha ku dhaca sida cudurrada caloosha ku dhaca oo dhibo qofka glutein wax la yiraaho ay dhibaan, ama ay dhibaan caanaha waxa ku jirto wax la dhaho lactose, sokor la dhaho. sokortaas ayaa dadka qaar dhibayso, taasoo qofka hadhowti ay shuban ku imaanayo. dadkaas ayaa waxa lagu arkaa 2 isbuuc ama wax ka badan shuban ah. haddaba maxaa calaamada uu leeyahay shubanka? calaamadaha uu leeyahay waxaa kamid ah qofkii inuu fuuq baxo, inuu matago, inay isha ku laabato, in caloosha ay bararto, ama calool dimbir oo ku dhaco, ama calool xanuun, ama calool marjiris. calaamadahaas dhan ayuu leeyahay. khaasatan ilmaha, indhaha ayaa gud noqda. waxaa kaloo lagu arkaa cunugii asigoo ooynaya aanan ilinka imaanayn. waxaa kaloo lagu arkaa cunuga haddaa calooshiisa soo qabatid in 2 second wax ka yar haddaa haysid inuusan soo laabanaynin jirka ciyow, uusan caloosha isku laabanin maqaarki, oo waqti dheer qaadan doono. haddaba sidee loo daaweeyaa? marka waxaa loo daaweeyaa qofka markii shuban uu isku arko isbitaalka ama la geeyo ama xarun caafimaad. waxaa la siiyaa hadduu wax cabi karo, afka ayaa laga siiyaa, ama faleemba ayaa laga siiyaa hadduun afka wax ka qaadan karin. intay faleembada iyo biyaha lagu fuuq baxa loo celinayo ay ku socotana waxaa loo diraa baaritaano ah wixii sababay shubankan. kadib markii baaritaanka oo soo baxana daawadiisa qofka saas ayaa loogu dhameeyaa. haddaba sidee looga hortagi karaa shuban ama looga doorsanaan karaa shuban? ama shubanada qaar ay keena sida parasite-ka ee keeno waxaa looga hortagi karaa qofka iyo bacteriyada ay keenaan oo degdega ah in gacmaha iska nadiifiyo, saabuun iskaga dhaqo kahor intuu cuntada cunin, iska qalajiyo, kadib cuntadiisa oo cuno. cuntadana la ilaaliyo daboolkeeda iyo meelaha lagu karinayo ayadana la ilaaliyo, oo aysan ku degin waxyaabaha duqsiga laga ilaaliyo. haddii cuntada aan la cunin la daboolo. haddaba dadka qaba cudurrada qaar ama isku arka shubanka waqtiga dheer soconayo ay dhibayaan cuntooyinka ay glutein ku jiraan ama lactose ay ku jiro, ayagana waxaa haboon in ay raadsadaan caanaha. haddii cabaan caana aysan ku jirin lactose inay raadsadaan si aysan ugu shubmin. kuwa glutein free-ga gluteinka qabana inay iska ilaaliyaan waxyaabaha qamadiga ku jiro, si shubankii hadhowti aysan ugu keenin shuban, aysan ugu keenin gluteinka hadhowso shuban ugu keenin. haddaba maxaa muhiim ah ama fiiro gaar inaan u yeelano ay tahay? waxaa muhiim ah in fiiro gaar ah u yeelano oo isla markiiba calaamado ah si degdeg ah in isbitaalku aadid ay tahay qasab. koow, qofkii haddii ay 24 saac ka badan uu shubmayay in isbitaal la aado waaye. 2, haddii uu dhiig ku arko saxarada ama wax madow ama wax malax oo kale ah. haddii qandhada hayso ay ka badato markii la cabiro 39 ilaa 40 ay gaarto, waa in qofkii si degdeg ah isbitaalka loo geeyaa. sababtoo ah waxaa qofka ku dhici karo in fuuqbax ku dhaco oona u geeriyoodo, hadhowna aan waxba laga qaban karin. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideyso.